xaaladda degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa degan kadib dagaal culus oo halkaas ku dhexmaray ciidamada militariga dowladda federaalka gaar ahaan guutada Cali bin Abi Talib iyo ciidamo ka tirsan kuwa dib u xiraynta deegaanka ee Macuusleyda. dagaalka ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa bilowday kadib markii askari ka tirsan guutada Cali bin Abi Talib uu si bareer ah ugu dilay gudaha degmada Maxaas mid ka mid ah ciidamada Macuusleyda ee deegaanka. waxaan intaasi kadib dhacay dagaal dhexmaray ciidamada guutada Cali bin Abi Talib iyo ciidamada dib u xiraynta Macuusleyda ee deegaanka. xaaladda degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa saakay degan, waxaana halkaasi ka socda dadaalo lagu kala dhexgelayo ciidankan oo laga cabsi qabo in mar kale halkaasi dagaal uu ku dhex maro. waxaana sidoo kale wararku ay sheegayaan in maamulka degmada Maxaas iyo mas'uuliyiin ka tirsan saraakiisha xoogga dalka ee ku sugan halkaasi wadaan dadaalo ay ku qaboojinayaan xiisadda ka taagan gudaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Muumin Maxamed Xalane iyo sidoo kale taliyaha guutada Cali bin Abi Talib Cabdimaalig ayaa wada dadaaladaasi oo ay ku doonayaan in labada dhinac waa ciidamada dib u xiraynta deegaanka ee Macuusleyda iyo ciidamada xoogga dalka gaar ahaan guutadaasi ee Cali bin Abi Talib heshiis ay kala dhexdhigaan si meesha looga saaro xiisad dagaal oo halkaasi ka dhacda. waa markii ugu horeysay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan uu dagaal ku dhex maro ciidamo ka tirsan militariga dowladda federaalka gaar ahaan guutada Cali bin Abi Talib iyo sidoo kale ciidamada dib u xiraynta Macuusleyda ee deegaanka, kuwaas oo halkaasi u jooga dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda Hiiraan iyo sidoo kale bariga gobolka Galgaduud.